si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalida qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horeeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba oo noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan oo ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaasi ay Ethiopia waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ee Mr. Giuseppe uu helay magaalada Badda Cas sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaani ah oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga casab uga iibisay cafarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sokayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zayla iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaradu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afkarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isbalaadiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa kamid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zayla, noobiyada ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dib ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka taliyay la oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgii ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galay waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho,
warsheekh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano Abasiiniya amaba Ethiopia markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay waqtigaasi Amanlika waxa waraaqu u qoray dalka awoodda lahay waqtigaasi jiray sanadkii 1899 warqadaasi waxa uu ku yiri Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn dagaalkii Cadwa ee dhexmaray Talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii Talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo Talyaaniga laga adkaaday kadib markii Talyaanigu lagu jabiyay dagaalkaasi Cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday nin la oran jiray Major Nerozani ayaa wada hadalla dhinaca Talyaaniga u galay waxaana Ethiopia Talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee Ogaadeenaya dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 Ingiriisku ugu ogolaaday sanadku markuu 1897 ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo sheekadaasi marka aynu soo gaadno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhageystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhamaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa Wedwed iyo Bohole 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Ethiopia Muqdisho Suudaan iyo Maka intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yiri sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaan waa ogol haddii aad nabad doonaysaan ganax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray 20 sannadood oo dagaal kula jiray Ingiriiska Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska anigoo soo koolaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay maalin maalmaha kamid ah ayaa nin baadari isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaas yiri war waxa kan waa maxay ee waa diinteeniyo la soo galay laba dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda culimada reer Berbera hadalla la isku jiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yaree arintii la isku maandhaafay markii dambena
xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi wale ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyey adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yare laga jeclayn ama wax ugu soo oobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey laba iskuul oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyay wax lagu baraayay inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa waagii horena maxaa lagu oran jiray cali sidaas ayuu usii dhaafay baa la yidhi wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaa maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana la isafgartay wuu ka tegey xoolihii isagoo wata wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yaro baa dhacay dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u eegay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha qaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nugaasha iyo dhulbahantaa in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdume meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayay hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe khalad ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgariya ayaa markii hore loo diday oo la oran jiray jijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay la yidhi waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayay wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaaldegin waa ku dabaaldegaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaaldegay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaayo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay oo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awalo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan iyo siyaaran ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey rag ku siiye xoolaha habar yoonis baa intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhaco 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaayey la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colka geelal badan baa laga qaaday geeli 100 halaad baa laga siiyey baa la leeyahay ninkii la oran jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyay suuxdaas oo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi gel lagu qaado asiiskeena abuuradow cimriyo ku simaado oo ay ciribteeda ogaada dabadeed waa guuran oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo teliyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyay ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa maaha wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan oo dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay
isku sanadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin dheerdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay وهاي كده بهالكان كوتشوتشنا أو جامع عمر عيسى كوني سجال بقول مركز تاريخ هاي لا كوني سجال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إثيوبيا تليانيكا أيا ويرحوجا إنجلس كسيد كاوكو قاضي تضبيط طبعا كبيشي أبريل سنة كوني سجال بقول يصدق دي سجال سركال يو بقول يسجال يسديت الناس أو كلا أي إنجليز كلا قدلي sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koowaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkiisa markaas la socday afartaan arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo ilig bishii March 5 sanadii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in Ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyay ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxa dhacay waqtigii loo bixiyay حرام عنا معلول آد وبعني عيد عظيم رسمي عن إنجليز كسنتي كونوا يسقال بقولي لبية طبعا كي وحى وكقياسي إن محمية ديسي سدح ميلود ميل أهان ضد كي كنولا عيدنتين وحكى تقول عضي إنه سيد كي أسوح وجيستي تاسو وحى كانتي إن إنجليز كو بدل استراتيجية ديسي وحلا باب العيد ما هو جامدين كي لأورينجر ريتشارد كوفي أو يسوي دجال لك على سيدك bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo dul madoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey Sayid Maxamed Cabdullah Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffey Coffey lowji tayaan dunida joogayne adiga jidkii lagu waday jimiclaanade جهنم لقيه وآخر جهنم نمكي جنوك عي وربيجرين شلعيه كواس النار تجوغي يوم مركب جران نبي قدد sidoo bahay ku jirabay mari jawaabteeda tarawiish jigraar nagama deyntani iyo jirkeede jigta weerar bay goor marqa anagu jifeeyande Ingiriis jabyo waxa ku dhacay jaciyo baruudade weligiis ba waa lagu jabshaa jilib dhigdulande haddaan lays jikraarayn tolkay laga jilroonade waxayno junjunteena waa jamaashadiinine anigana jigrey ilaa helay shalay jahadkeene sheeniga hortiisay rasaas igaaga jiidane jiidhayaday ilaa dhicin jili cafkoodiine وهجاك برنامج كني مكهالكاس أيان كوشو تشينينا وحنا هالكا كبل عبد دونا مركا برنامج كه قيبتي صلبات